asxaabey maanta waxaynu la wadaagi doonaa insha allah qiso run ahaantii aada ii qiiro gelisay oo maaragtay aan aada uga xumaaday. Gabadh walaashay waxay nala soo wadaagtay qisadeeda maasha allah. Ilaahay sidii noo aamintay insha allah inaan aniguna uga soo baxayo rajeynayaa. Qisadaas sida tan u dhacaysa waa gabadh Soomaaliyeed oo wiil Soomaaliyeed guursatay. Kadib waxaa dhacday in maaragtay caruur dhasho sidii caadada ahayd maasha allah. Ilaahay wuxuu siiyey 3 ubad ah. Kadib 3dii ubad ahaa ayaaba waxaa dhacday inuu ilaahay wiilkii qabay u qaado. Markaa kadib waxa ay ku noolayd wadankii 3deeda caruur ay korsanaysay. Markaa ka hor waxay deganeyd guriga reerkooda. Deedna gurigii reerkooda si u deganeyd ayaaba waxaa dhacday markii ay ogaadeen reerkii inuu inankii dhintay ayaaba gurigii laga saaray. Gurigii markii laga saaray waxay bilowday inay maaragtay hadashay tiraahdo guriga meel aan uga bixi karaa ma jiro, caruur baan u hayay, ilaahay baana dilay marxuumkaas, anigu sabab ma lahayn. Ilaahay qaatay, ilaahay lahaabaa qaatay, maanta maxaa la iga saaray shalay toban markuu noolaaba la igama saari lahayn. Inantii sidii adigu waxbayaan hadal nagu daalinin waa laga saaray gurigii. Kadib waxay bilowday in ay u daydayato meel ay la degto caruurteedii. Qisadana waxay ka dhacday waa wadankii, khusuusan meeshay tahay iyo qofka magaciisa toona la sheegi mayno, laakiin waa wadankeena. Markaa gabadh waxay ahayd gabadh iska yar oo maaragtay ugu boo 3 caruur ah haysata oo nolosha wax badan ka fahansan, laakiin aanay duruufaha qaar aanay hooye aanay u jilba dhigan karin. Markii laga saaray gurigii waxay bilowday inay guri daydayato, inay shaqo daydayato. Run ahaantii may sahlanayn inay shaqo hesho. Kadib waxay heshay meel maqaaxiya inay ka shaqeyso oo laga siiyo $50. $50 ayay istiri guri ku kirayso. Run ahaantii way weyday. Waxayna doonatay in ay guri la dego dadka isla degaan oo kale, dadka cadan yarta isla degi karaan oo barkaaga dhiibanaysid. Guri ma aha laakiin waa qaraabad ama guri jajab ah ay degto. Gurigii bay degtay, sidii bay gurigii ku deganayd. Markii sidii ku deganayd gurigii caruurteed waxay sameyn jirtay raalahaada saxaabe waa xabeebsamay. Waxay sameyn jirtay in ay caruurta ku xidho guriga, ay mid walba intay cuntadiisa hor dhigto ay lugta ka xidho, ayna sidaa ku shaqo tagto. Ay habeenkii u timaado iyadoo cuntadii u sida wixii ay haysayna markii ahaan subaxnimadii ay kasoo kala haysay hor dhigtay. Ilmo walba meeshii u dhow baa lagu xidhayaa. Run ahaantii waa qiso aad aan uga calool xumaaday. Gabadh Soomaaliyeed oo maanta duruuf lagu eegtay oo la yiraahday haa markii uu dhintay ninku ayaan guriga ka saarayna. Dad sidii waxay ahaataba ilaahay waa u sakhiray reerkii ay u shaqeynaysay, duruufteedii bay la wadaagtay. maasha allah tabaaraka allah. Reerkaasna reer wax iska yar haystay ahaayeen. Way caawiyeen, guri bay siiyeen, guri ay degtay siiyeen oo maaragtay magaalada u dhow meeshay ka shaqeysay u dhow. Waxaanay ku yiraahdeen caruurtaadi hayso, anagana kugu biilinayna maadaama ay agoon yihiin oo ay dhibaatadaas la kulantay. Dabadeed maxay samaysay? Halkii bay okay bay tiri, halkii bay la fadhiisatay caruurteeda sidii bay ku haysatay. maasha allah iskuulkii baa looga bixiyay. Ilmaheedii xitaa iyada qudhigeedii ayaa bilowday inay wax barato. maasha allah. Markaas xaabay adduunka intaas la isu jiraa. Berito hore kuweedun baa u kacay oo anfici doona. Reerkii shalay tola soo saarayna waa iyadun bay daba istaagi doonaa. Markaas xaabta qaaliga waxaan la soo wadaagay qisadan aadka iyo calool xumaysay. Run ahaantii waxaana ereygaana tiri aad ii dhiirigeliyay wuxuu ahaa waxay tiri adduunyadu hadba waa gelin, maalinba waa gelin, yacni maalin walba dee waayihiisu wataa. Shalay way soo saareen, maanta guri aan aniga la odhanayn yaa tahay, dad aan waxba isu ahayn oo Soomaalinimo u caawiyay darteed muslimnimo iyo xaaladeeda markay uga warantay ka damqaday ayaaba caawiyay. Bal ka fikir dadka caruurta dhalay Soomaaliya warnimayaho waxyaabaha qaar ilaahay ka cafiyo dadkeena. Wallahi bilaa wax kale nidhaahno ma garanayno, laakiin waa qiso aad u xanuun badan. Heer waxaanay gaadhay in ayadii iska daa shaqo la yiraahdo ina yar baa tahay, noloshaada weli wadan kartaa,
la dhiirigeliyo lagu yidhaahdo waxbaad baran kartaaba waxbaad baran kartaa maasha allah tabaarakallah asxaabay run ahaantii qisada way i dhiirigelisay waanay maaragtay sina waan uga calool xumaaday idinkana insha allah kasoo sheega saad u aragtiin waa kaas ila soo wadaaga insha allah qisooyinka lambarkaygana hoosaan kusoo qori doona insha allah halkaasaan waxay kasoo direynaa waad mahadsantiin dhammaantiin